waxaa hore loo sii qorsheeyey in garaadka lagu aaso deegaankii uu ku dhashay oo ahaa tuulada Woodward kadib markii lagala tashaday qoyskiisii eheladiisii iyo odayaashaba kin aniga ahaan iyo ka family ahaan iyo ka dawladda ku jira hadaan waxaan u sheegay in aan cidna la kulmin markaan tirigeeyna wuxuu ahaa wasiirka aan gadaal ka soo sheegi doono una diyaar u hayn in uu arintan ka hadlo ama nala kulmo curadkii marxuumku dhalay garaad Abshir Saalax waan uga dambeynay kuna ixtiraameynay Cabdinaasir garaad Abshir Saalax iyo odayaal kale oo badan oo aanu kula shirnay qayb ka mid odayaasha xafiiskayga wasaaradda warfaafinta iyadoo ay nala jubheliyaan wasiirka biyaha wasiirka madaxtooyada wasiirka dibadejinta xildhibaanka wasiirka caafimaadka xagle toosiye wasiirka dakhliga cali maxamed waran cadde intuu ay joogaan aan wasaaradda warfaafinta ku shirnay meelna wax wada dhignay tan ka wasiir ahaan cadaan iyo muxuu ahaa raggii kale ee uu yiri arinta ayay loo xirsaaray aniga cid ila kulantay inuu dawladdan ka shaqeeya cid ila kulantay iyo cid ila soo qaaday ma jirin markii arintu halka marayso baan horta anigu buu hodlay u soo baxay iyadoo guddiga amnigu ee goobta aaska iyo qabanqaabada aaskaba hore loo sii diyaariyey adeer guddiga amnigu waxay aabahayo oo aanu aaskiisii ku jirno guddi amni waxay iskugu tagaan oo u shiraan ma arag waayo guddiga amniga waa banyaa guddiga amniga waxa la iskugu yeeraa marka ama duni la qaxiyo oo dunidani magaranaysa magaaladani qaraxdo oo dadka terrorist waxa la yiraahdo dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka mas'uul ah sugidda ammaanka waxay ugu baaqayaan cid kasta oo ka mid ah reerka uu garaadku ka dhashay inay ka qayb geli karaan aaska haddii ay yihiin mucaarad iyo haddii ay yihiin muxaafid xataa ragga sheeganaya khaatimo arinta inaan la siyaasadayn oo waatan maanta wasiir dhan oo warfaafinay waa siyaasad waa taan anigu sheegayay aan lahaa war siyaasadda bal arinta laga dhaafo waxa qura ee ka reeban madasha aaska waa cid hubaysan oo aan ahayn ciidamada qalabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa wanaagsanayd inay anagana nala tashadaan wixii aanu ka hadlaynay baa horta taagan oo arintii siyaasadda ahayd baa horta taagan isagaana wasiirku ka hadlay group hebel iyo group hebel iyo group hebel Puntland bay ka iman karaan kilinka shanaad bay ka imanayaan haday doonaan xawar bay ka imanayaan